nolosha qarsoon ee Yurub ka jirto. qof walba oo maanta talo walaalnimo i weydiin lahaa kaliya talada aan siin lahaa waxay ahaan lahayd in dalkiisii oo fursado ka abuurto, dalkiisii uu ku sugnaado. dabcan haddaan uga cusubtahay nagu soo bir saaxiibadada la wadaag YouTube-ka haddaan naga daawanaysid subscribe noo saar, haddaan naga daawanaysid page-kana follow dheh. waxaan haynaa wadadaan ku gaari lahayn 500 subscribe. muuqaalkana like saar, share-taadana waa noo muhiim. wixii fikrad ah commentiga inuu soo qor. mahadsanid. nolosheedii dhabta ah tani waa nolol adi aadan wax ka ogeyn. waxa aan rabaa inaan kula wadaago qayb ka mid ah nolosheeda. waxaa laga yaabaa inaad wax badan i aragtay anigoo ku madadaalinayo, anoo kaa farxiyo, anoo kaa qosliyo, anoo wax badan kaa naxiyo, balse maanta waxa aan kula wadaagayaa nolosha qarsoon ee Yurub ka jirto iyo nolosheeda qaaska ah qayb ka mid ah. tani aan dhabta ku hayo waa gabadheedii 2 bilood dhalan, balse keli aan ku korsado calafkii iyo waqtigii uu dhammaaday hooyadeed. qayb ka mid ah nolosheeda ila socda iyo xaaladaha gaarka ee jiro. badan haddii aad aragtay macdaani oo keliya ku fadhiyo balse aadan ogeyn noloshiisa dhabta ah iyo xaaladaha gaarka u ah, maanta waxa aan kula wadaagayaa qayb ka mid ah nolosheeda gaarka ah. waxaa laga yaabaa wax badan inaad aragtay anigoo keli ah ku hor fadhiyo, markaa qosliyo, markaa farxiyo, markaa oysiyo, si walba iyo nooc walba, balse nolosha dhabta taas way ka duwan tahay. maxaa ka jiro oo aadan ogeyn qaaradda Yurub? maxay tahay nolosha gaarka ah oo adiga ii gaarka ah? hadda sida muuqaalka aad ka aragtaan waxa aan wadaa oo aan goob xanaana aan ka keenay gabadheedii oo 2 bilood u dhalan. saakay shaqada inta aan aadin ayaan goobtaas geeyey, anigana shaqadeeda ayaan sii aaday. hadda aan shaqada ka soo laabtay ayaan dib u soo waday guriga. sida caadada ah labadeena oo keliya ayaa ku nool, maadaama calafkii iyo waqtigii uu dhammaaday hooyadeed oo aan wada joogin, balse aniga ayaa korsado oo nolosheeda diyaar u ah. subaxii shaqada ayaan aadnaa oo iyada goobtaas xanaanada ayaan geeyaa. balse marka aad joogto qaaradda Afrika waa ay ka duwan tahay nolosha Yurub. waxa ay tahay mid aad u adag markii loo fiiriyo dalkeeni iyo guud ahaan qaaradda Afrika, khaasatan marka aad shaqaynayso oo aad mas'uuliyad ay ka saaran tahay way ka duwan tahay. balse intaasoo dhan waxaa muhiimadda ah inaad leedahay go'aan iyo hadaf muuqdo. dad badan waxay soo weydiin doonaan gabar dhalan 2 bilood sababta ay hooyadeed ugu tagtay maxaa keeni karo? balse wax walba waa calaf, wax walba waa qadar. qofna go'aan ma lahan, ilaahay ayay wax walba xaggiisa ka ahaadeen. hadda waxaan ku sii socdaa gurigeyga si aan nolosheedii kale oo gaarka u qabsado, balse muuqaalkan waxaan kula wadaagay inaan kuu sheego xaaladda dhabta ah iyo nolosha dhabta ah ee ka jirta qaaradda Afrika oo aadan ogeyn adiga. waxaa laga yaabaa inaad aragto guryo qurux badan, meel doog ah oo cagaaran, dal nabad ah, balse nolosha intaas waa ay ka duwan tahay. waxaa jiro wax qarsoon oo adiga aadan ogeyn. qof walba oo maanta talo walaalnimo i weydiin lahaa kaliya talada aan siin lahaa waxay ahaan lahayd in dalkiisii oo fursado ka abuurto, dalkiisii uu ku sugnaado. dabcan marka aad joogto qaaradda Yurub way ka adag tahay nolosha caadiga ah, balse wax walba waa qadar iyo wuxuu alla qoray. balse waxaan ku faraxsanahay in gabadheedii 2 bilood jirto, mas'uuliyaddeeda aniga ay saaran tahay, aan korsado, aan u diyaariyo xanaanada, mas'uuliyaddeeda guudna aniga ay saaran tahay alla kadib. waa ku faraxsanahay. noloshaan waa midda dhabta ah, waa midda ka duwan baraha bulshada aan mararka qaar aan kula soo galo si aan kaga qosliyo. waxaan kaa codsanayaa muuqaalkan hadduu ku soo gaaro like saar, ku share garee asxaabtaada. waxaan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga. waxaan ahay Axmed Daani Baxas.